السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال من البودافع الدوين أد كجوكتان كون سو دواد برنامج كوعي وأد كداوتان برنامجيو كلا دوان maantana barnaamijka wacyi waxaynu ku eegaynaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo maxaa ka cusub. waxaynu ku faraxsanahay inuu marti inoogu yahay Faysal Roble oo geyiga Soomaalida si guud looga yaqaano kana deeqtoon inaan faahfaahin dheeri ah ka sii bixiyo. Faysal ku soo dhow barnaamijka. aad ma santahay waana dhawahay. Faysal saad la socoto magaalada Nairobi waxaa lagaga dhawaaqay yagleelida urur cusub oo ujeedada iyo ajandihiisa midna aan si wacan loo garanaynin. waxaa loo arkay lagagana hor yimaaday si weyn waxaana loo arkay dabcan in ay dawladdan cusub ee Soomaaliya ay ku yihiin inay ragaadiyaan ama ay ka hor imaadaan ama ay hor socodkeeda caqabad ku noqdaan in loo arkay maadaama xilliga ay ku dhawaaqeen iyo xilliga dawladda iyo wax oo dhan aad isugu dhow yihiin. sidee u aragtaa maadaama siyaasadda Soomaaliya aad uga warqabto aad la falanqayso? horta runtii waa mahadsan tahay shakhsiyaadka ka cadcad xubnahaas oo hadda Nairobi ku shiray intaanay Nairobi qaarkood tagina Muqdisho hadalla yaryar ka tuurto. waxaad moodaa inay ahaayeen kooxdii markii doorashadu socotay xagga madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud xigay lazman lama diideen waana sharci in ay samaystaan xisbi ay markaa dawladda markaa talada haysa uga soo horjeedaan laakiin waqtiga ayaan munaasab ahayn dhowr sababood awgeed. kow in ay ku qabtaan dhawaaqooda ugu horeeyana ay ka sii daayaan dal shisheeye. horta taas ummadda Soomaaliyeed uma bogayso xeelad fiican oo xeelad siyaasadeedna ma aha. taas waa kow. tan labaad waxa weeye waxay ahayd in ay ka biya dhigaan inta la samaynayo iyadoo hadda gacanta lagu hayo sharciyadii xisbiyaadka loo diyaarinayay si dalkoo dhan hadhow loogu soo talaalo nidaam xisbiga markay taariikhdu tahay 22 doorasho fiican oo caqligala dalku galo. marka labada arrimood awgoodba iyadoo waliba ay weheliso shakhsiyaadkaas ka muuqda ay yihiin kuwii shalayto uun doorashada waayey baa waxaad odhanaysaa in ay waxa gaaladu yidhaahdaan dameerkii iyo gaarigii inay kala horreysiiyeen oo gaarigii xagga hore dhigeen dameerkiina gadaal. inay sugaan baa fiicnayd, inay dalka dhexdeeda waxaan kaga dhawaaqaan baa fiicnayd, in ay shuruucda inta la dejinayo ay sugaan bay ahayd. marka arintaa waxaan u arkaa anigu khalad runtii waqtigan hadda la joogo. waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo shakhsiyaadka ka muuqdo weliba dawladdii hore la shaqeynaya ama tartamay yaa kamid ahaad is leedahay? runtii de kollaba media waynu ku aragnay haddii aynu saxaafad dalkoo dhan laga dhegaysanayo aynu ka hadlaynana aynu u dayno daawadayaasha inay iyagu magacda iyo shakhsiga ka muuqda ay sheegaan. laakiin dee dad si fiican loo garanaya ayaa ka mida oo aadna uga cadcadaa doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud haddana meesha ka cad inay muddo sameeyaanna anigu shakhsiyan lama diidana laakiin tabteedii ma hayaan ilaa hadda. gartay marka waxa dadku Soomaalidu ay aad uga naxeen iyaga oo rajadoodii hadda iminka ay soo noqotay in xilligan ay ku aadiyaan dhawaaqooda. arintaas maxaa la isdhihi karaa? waxaa la isdhihi karaa wixii aynu hadda ka soo gudubnay bay gadaal ugu noqdeen. dalkii doorasha ka dhacday mandate buuxda ama ka soo horjeed madaxweyne ama ka soo horjeedin laakiin aqlabiyad ballaaran baa ummadda Soomaaliyeed kolba hadda ilaa imika ay ugu tabarucday madaxweyne hadda joogay dawladdiisa iyo prime ministerkiisa. kolba arrimo lagu diidi karaa way soo baxayaan waana soo bixi karaan. qolada kale ee xisbiga samaysan rabtaana in arrimaha badka soo dhigaan waa loo baahan yahay. laakiin waxaad moodaa xeeladii hore aynu la soo daalaa dhacnay ee ahayd marka dawladda dhisaba kudlad is urursata in ay ku shido ama madaxweynaha ama prime ministerka iyagoo markaa rabo uun inay qofkaa bedelaan laakiin barnaamij aan lahayn. mudicigu waa inuu barnaamij yeeshaa, waa inuu political program waxa la yidhaha yeeshaa, waa inuu u soo bandhigaa dadka wuxuu ku diidan yahay dawladda markaa jirta. marka wixii aynu ka soo gudubnay oo hadda aynu rabnay inaynu higsanno xisbiyaad bay sugi kari waayeen oo wasal fudaydkaas baa runtii meesha aad uga muuqda. gartay Faysal saad la socotaba dalka Ingiriiska waxaa ku soo gabagaboobay shir lagaga hadlayo arrimo badan. maxay tahay baad is leedahay danta uu ka lahaa dalka Ingiriiska inuu shirkaas qabto una si firfircoon hawshaas
u fuliyey shirkaas dad badan aad uma fahansana marka maxaa isleedahay danta ingiriiska u kala duwayd horta shirku waa kii saddexaad kii ugu horreeyey 2011 baa la qabtay Shariif Axmed dabayaaqadiisii xasan sheekh maxamuud markuu qabsaday sanadkii ugu horreeyey February 22 waqti la qabtay kana waa tii saddexaad shirkan wuxuu saldhig u ah fakarkii ahaa Soomaaliya in gacanta lagu hayo dhaqaalana loo ururiyo horta arrinta muhiimku waa taas waxyaabo badan baa markaa ku dhex jira waxa ku dhex jira in Soomaaliya la qalabeeyo in ciidamada ilaalinaya kharash loo helo in barnaamijyada Soomaaliya dib loogu soo dhisay dawladii burburtay waxay yiraahdaan failed state ama collapsed state dawlad duntay sidii loo soo dhisi lahaa markii dambena watii la qodobeeyay oo lagu qodobeeyay geedi socodkii barnaamijkii compact ama Soomaaliya hiigsigii 12 kala soo saaray intoo dhan lacag xoog loo ururiyo ayuun baa talada ku jirtay haddana tiiba talada ku jirta deeqi bixiyaashu inay amaahda laynagu leeyahay laynaga dhaafo in barnaamijka laynoo dhiso la maalgeliyo dadka isla markaana maalgelinta iyo kharashka la siiyo ciidamada nabadgelyada ilaaliya ee Afrikaanka dalalkaas ka yimid iyagana in si oo qaybta weyn ku baxdo in iyadana kharashka sidii horta intaasay ahayd waana kii hore oo saddexaad wax aad uga duwan hadduu jiro waa iyadoo dawladda hadda dhalatay aad moodo reer galbeedku inay marka isleeyihiin talow marka dawladii aqlabiyada lahaydba horta taasi midaas ayay ahayd oo ta ugu ballaaran ta kalena haddaad weydiisada waa ka hadli karaayo waxay ahayd khudbadii uu madaxweynuhu ka jeediyay oo runtii meesha taalay gartay marka dabcan ingiriisku dan badan buu lahaa waana tilmaamtay in shirkan kii saddexaad uu yahay waxyaabo badanna shirarkii hore lagu soo qaadayay ee kaabayaasha kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha amniga cafinta deynta iyo waxyaalo badan oo noocaas oo kale ah mar walba laga hadlo laakiin say u suura galaan iyo si uga duwanaan doona natiijadiisaba dabcan dadku ay isweydiinayaan ay u eegi doonaan oo fiirsan doonaan say noqon doonto ingiriisku dana badan buu ka lahaa shirkaasi Soomaalidu maxaa dana oo ay ka lahayd shirkaasi ama ugu jiro Soomaalidu sida aad hadda sidii dalku inooga dumayba waxay naga baabay kaabayaasha dhaqaalaha waxay naga baabay nidaamkii dawliga dollar lacag adag dalka ma haysato cashuuro badan ma soo galaan marka haddii fakarka dawladdu ay meelaha la meeraysa la fiiriyo waxa weeyana taageera horta ingiriiska uuna maaha ingiriiska inkastuu yahay chairmanka ama shir gudoomiyaha laakiin israaca EUda ama professoranka reer Yurub ayaa kamida dalalka Carabaha kamida 40 dal wax ku dhow ayaa isugu yimid markii horena saasay u badnaayeen marka ingiriisku ha hogaamiyo oo barudkeeda ha lahaado oo wasiiradii prime ministeradii ku horeeyay Theresa May ayaa arinta iyana gacanta ku hayay marka waa hormoodka laakiin waa loo dhan yahay ingiriisku sa qaybta libaaxiso ayuu ka qaadanayaa waxa labeeyay ingiriiska Norway oo iyana si gaar ah bariyaha arrimaha Soomaaliya gacanta ugu jira gacantana ku haysa gartay waxa tilmaamtay khudbooyinkii marka khudbadii madaxweynaha sidee kugu muuqatay samxay uga duwaneed khudbooyinkiisii hore ma horta runtii khudbad dheer bay ahayd iyadoo qoran waan akhriyay markii la ii soo diray waana dhageystay anigu laba khaanadood ma kala qaybiyay khaanadan idii waxa la iska ilaawi kara markaaba waxa la iska ilaawi karo waxaan ka wadaa wax soo noqnoqday saddexda shir ee la soo qabtay kan kamid yahay wax isku mid oo laga hadlay in ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed loo ururiyay lacag gaaraysa 2 bilyan iyo wax ka badan waxna kama hayno waxna kama inaanara buundaleeno gama dhisin inkastoo mucaamada ugu badan iyo kharashka mushaarka Amazon oo ka yimaado natiijo badan kama hayno marka tii un baa lagu celiyay hadda waxa cadayd madaxweynuhu inuu sharaxay barnaamijka dib u dhiska dhaqaalaha dalka inuu aad uga hadlay laakiin taasna meelo badan baad saluugi kartaayo waa nidaamyadan dhaqaalaha ee reer Yurubka ama reer galbeedku gacanta ku hayaan oo danyarta inta badan aan u danayn taas waa laga dootami karaa kolbar fikradda aad raacsan tahay nidaam fiican buu ahaa uu madaxweynuhu sharaxay iyo wax buugaagta isaga qoran ayuu ahabaad soran kartaa anu taa waxaan u bixiyay waxa markaa la iska ilaawi karo barkii waxaynu soo aragnay 2 shir oo ka horeeyay oo maanta ummadda Soomaaliyeed isweydiinayso waliba madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud noo ka hadluu yiri lacagiba anaga nama soo gaadho waxaan Abdullaahi Farmaajo markuu prime minister ka ahaana uu aad u dhaleelay UN inaanay wax badan iyo dalalkani na soo gaarsiin marka taa iyada aynu u bixino waxa la iska ilaawi karo
because meel ma gaadho. Qaanada labaad baa aniga muhiim yahay oo ahayd markii ugu horeysay waxaan madaxweynaha ka filanaynay oo ahaa ummadda Soomaaliyeed inuu connection ama xidid la sameeyo, inuu la xidido, inuu iyaga si fiican ula hadlo. Dhowr qodob oo runtii muhiim ah oo ugu talagalay ummadda Soomaaliyeed isagoo gaalada hor jooga inuu la hadlo. Waxa kamid ahaa inuu nala qaybsaday xanuunkii wasiirkii yaraa da'da yaraa ee la dilay Abbas Siraaj. xanuunka uu madaxweynuhu dadkiisa la qaybsadaana qayb wax bay ka ciyaartaa isku tolka labada dhinac, shacbi weynaha iyo dadka. taasi waa koow. talabaad wuxuu xusay uu si fiican u sharaxay ummadda Soomaaliyeed hadday jaaniskeeda hesho in ay ahayd dhaqaale abuure dadka ugu firfircoon ama baacimushar ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqoto, isagoo markaa leh haddii waqti fiican aanu helo waa ka faa'iidaysan karnaa Soomaali ahaan. isagoo dhalinyarada dhiirigeliyey, isagoo markii ugu horeysay meel international ama caalami iyadoo laga hadlayo u sheegay ummadda iyo kuwa hor fadhiyaba Soomaaliya inay ugu facroon tahay Afrika marka la eego xagga ku wareejinta awoodda ilaa aadan cad waqtigiisii. marka sheekadii hore iyo taariikhdii hore ee quruxda badnayd iyo tan hadda ayuu isku taxay. uu yidhi inkastoonu dhibaato leenahay laakiin waxaanu Afrikada kale kaga facdheernahay in annagu aan samayn karno waxa la yidhaahdo peaceful transfer of power ama awood waroojin nabadeed. waxa markaa hor fadhiya sarbeebta sheekadu ay ahayd anigu sidaan u micnaystay Museveni, Haile Mariam oo noocaga jugleeya oo midkoodna 20 sano iyo wax ka badan doorasho shacbi aan qaban, aqlabiyadna aan lahayn. marka in reer galbeedkana isagoo u sheegay hadday sheekada aad dugataan annaga idinka dhow marka la eego nidaamka aad ku dhaqantaan oo ah ka dimuqraadiga ee la wareejiyo. marka runtii intaasina aad bay u qurux badnayd. waxa uu ku soo gabagabeeyay oo aad uga mabsuuday in uu Soomaalida u soo hordhigay in dawladdiisu diyaar u tahay in AMISOM taladii ay kala wareegto iyadoo la isku keenayo awoodda gobolada ciidamadeeda iyo ta dhexe ciidamo midaysan la dhisayo. isla markaana uu yidhi ciidamo waanu haysanaa, waanu dhisi karnaa, ana qabataynta hubkana naga qaada. markuu ka dharjiyey wafdigii meesha fadhiyey arrinta Soomaalidu inay fac dheer ku leedahay xagga dimuqraasiyadda, in dadkeedu dhaqaale abuuri kara haddii chance ayuu yidhi diyaar baanu u nahay inaanu hadda annagu nabadgelyadeeda qabano. it was beautiful. arrin qurux badan bay ahayd runtii. waan u sadbadiyey isaga meeta ku daro waxa aanan weli madaxweyne ka maqal isagoo meel fagaaro caalamiya ka hadlaya farmaajo taabtayna waxay ahayd waa markii ugu horeysay uu xusay prime ministerkiisa meelihii buu yidhi magaca iyo maamuusta aniga kaliday xasan khayre ayuu taabtay. uu yidhi my partner ama ninka saaxiibka ila shaqeeya iyo wasiiradeyda ila shaqeeya. anigu taa waxaan u arkay waxa afkaalada lagu yiraahdo team player inaanu isagu uunir magacii rabine uu dumarka iyo ragga la shaqeynayana uu la qaybsado credit u hayo. one man show ayna ahayn. I hope inay saa ku wada jiraan even haddaynu muddo ku furaynana team baynu ku furaynaa ee shakhsiyaad kuma furayno. marka dawladda farmaajo inay ka dhabayso inaanay ahayn shakhsi taasina qabyaaladey aasaysaaya la soco. marka wixii team noqdo team baa laga hortagi karaa. gartay haddaan in yar ku noqdo qaybtii hore ee lacagaha la yabo shir walboo la tago meel walboo la tago lacag baa aad u fara badan baa la yaboha. dawladihii hore marka waxaa lagu dhaliili jiray in aysan ayagu aqoonba sida lacagtaas loo doonto, sababtoo ah maalinkii lacag la yaboho oo si public la magacaaga lagu bixiyo leeyahay Soomaaliya intaas aynu siinayna si aggressively ayna u doonato adaa laga doonaya. dawladihii hore oo dhan way ku fashilmi jireen. ma kula tahay dawladdan wixii loo yaboho lacaga inay cagaheeda ku raadsan doonto? waynu uga fadhinaa runtii. dawladdii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud qudhiisu marayihii ugu dambeeyay uu ka hadlay canaanta iyo frustrationka ka haysta in lacaguhu aanay soo gaadhin meelo kale ay maraan. dawladda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan khayre waxa looga fadhiyaa bay aniga ila tahay shacbigu tuhum weyn buu qabaa. aniga iyo adigu labadeennaba tuhum baynu qabnaa. Soomaali weyn tuhum bay qabtaa odhanaya lacag baa lana siiyaa mana aragno. waxaynu ka rabnaa intaanay balyabooha gaadhin in ay inoo rumeeyaan inay jirto lacag Soomaaliya loo qoondeeyo laakiin meelo kale la mariyo. taasi waxay iyaga u horseedaysaa in ay inagana tuhumka inaga saaraan isla markaana ay yeeshaan wax la yiraahdo political base, dad ummad Soomaaliyeed oo runta ku raacsan iyaga. haddii markaa taa ay noqoto waxay noqonaysaa sida aad sheegtay in ay yiraahdaan bilyan baa Soomaaliya la sheegayaa, bilyankii waxba kama hayno ama wixii na tusa
haddaydan na tusayna hanugu madaraasanina marka shacbigaaga inaad horta marka hore la qaybsato waxaan anigii adigu hadda ma garanayno in waxaan ku tiri kutaan tahay iyo fadhi ku tirirku inay yidhaahdaan iyo in kale inkastoo madaxduba ay yidhaahdeen laakiin waxaan rabnaa inay noo cadadeeyaan yaan la yaraysan ummadda Soomaaliyeed runtii shacbi weynuhu waa well educated markay noqoto xagga siyaasadda wax badan bay fahamsan yihiin dawladdu waxaan uga rabnaa inay inoo qodobeeyaan lacagta la siiyo hayna bareen tan waynu ku taageeri doonashada ay doonanayaanna waynu markaa waa runta hadda way lacagta way raadsadeen lacagta laakiin sida lagu raadsadaa ma aha oo kaliya ta inaad tiraahdo lacagtiina siiya deeq bixiyaashu waxay ku bixiyaan deeqaha waana rajaynayaa ragga kartida leh iyo dumar kartida leh ee cabinet ku jira inay arrintaa gartaan in projects nidaamsan aad dhisto oo isku jaango-an kharashkiisa waqtiga aad dhammaynayso iyo inta uu ku kacayo iyo waxoo dhan dad badan oo runtii khibro ula way jiraan in markaa ay la hortagaan for instance ciidamada markay dhisaan inay yidhahdaan 20 baan u baahannahay intaasoo waqti marka way jirtaa inay codsadeen in deeqaha amaahda qaar laga dhaafo waa jiraan laakiin de waynu soo aragnay dhowr jeer gartay khudbooyinkii madaxweynayaasha xataa maamul goboleedyada markaad fiiriso qofkii siyaasi ah siyaasadda Soomaaliyana la socdo wuxuu ka dareemayaa qaybo kamid ah qaybahaas in ay ku jirtay isu jawaabid tusaale mid kamida waxa uu sheegay waliba Axmed Madoobe ahaa inuu asagu aaminsan yahay ama uusan aaminsanayn federaalka oo aaminsan yahay federaal la'aan inay dawladda noqoto kuwii kalena waxa arkaysa inay xoog saaraan federaalka iyo dastuurka in la ixtiraamo arrintaas maxaa kaaga baxay aniga runtii waxa iga baxay Axmed Madoobe inuu kow daacad ahaa sida Soomaali badani ay u fasiratay anuu ma fasiran wuxuu kala saaray Axmed Madoobe sharciga wadanka lagu dhaqayo iyo shakhsi ahaan wuxuu aaminsan yahay ama uu jeclaan lahaa Soomaali badan ayaa jecel in wixii unitary la oran jiray ama awood urursan oo meel kaliya ku urursan in looga taliyo markii ugu horeysayna ma Axmed Madoobe waa markii saddexaad iyo afraad uu yiri anigu shakhsi ahaan waxaan jeclaan lahaa in federaalkan laga tago aan shakhsi ahaan aaminsanayn laakiin maadaama ay tahay nidaamka hadda ummadda Soomaaliyeed isku soo ururinayo sharciga wadanka yaalana waan u ogaansanahay waanan implement gareynaya ama ficiliyan baan ku tusaya waxna ku xukumaya anigu runtii khaladumaan arag because marka aad aaminsan tahay sheeko lagu heshiiyey sida constitutionka oo kale iyo sharciga wadanka u qoran meelo badan baad ka diidi kartaa laakiin waad u hogaansamamaysaa marka anigu sidaan u akhristay saas waan u hogaansanahay waanan ogolahay Soomaali danbay u aragtay la isku soo ururiyo halkaasna waa ku meel maraya hadii hadhow marka ay noqoto shakhsi vote buu leeyahay marka hadhow constitutionka ratification lagu samaynayo qof kasta fikrad buu ka dhibinaya inuu fikradiisa ka dhibto uu furan yahay koo kalena waa furan yahay isagu taas waa inuu marka shirkaas weyn dhexdeeda ka dhaho iyo inuusan ka dhihin oo dib u dhigto midkeed dooran lahayd shakhsi ahaan adiga anigu runtii waxaan dooran lahaa inuu meel aan meesha ahayn kaga hadla runtii sababtoo ah waxay ahayd meel aad official u ah laakiin Axmed Madoobe saad u aragtay waxaad uga baratay wax ay Soomaalida hadda inta badan ay leeyihiin waa rusheeg waa ninkii mar ka dhaxiyay waxaynu af Ingiriis ugu hadlaynaa inagoo Soomaaliya oo dal Soomaaliyeeda marka marmar waxaad moodaa daacadnimadii odayadii Soomaalida lagu yaqaanay in uu ka sheego dadka qaarkood ba waxay oran karaan daacadnimada noocaas ma shaqayso laakiin runtii inuu qofku niyadiisa u hogaansanaado si edeb leh oo sharaf leh oo uu kala saaro aaminaad oo sida kuwii marka dhow aynu ka sheekeynayna power bay jecel yihiin laakiin sharcigii wadanka iyo dhaqankii u yaala kun Nairobi ku jiray way isku laaqeen bimacni dawladda muddici ku samee laakiin sharciga la soo saaray suuq sharciga ku hawlgar adoo xisbiya Axmed Madoobe wuxuu yiri shakhsiyan anigu waxaan dooran lahaa inaan federaal jirin Soomaali badan baan caynkaas laakiin waan u hogaansamahay waa sida hadda dalkan markaynu joogno sharciyo badan baa la soo saaraa qofka shakhsigu diidan yahay laakiin waad ku hawlgalaysaa gartay waxaad tilmaamtay in khudbadii madaxweynaha oo AMISOM oo diray fariin ay fahmi karaan hadda 10 sano ayaa u dhameystirantay AMISOM ha u dhameystirantay waxa in badan la isweydiinaya maadaama dawladdan ay cusub tahay maxay tahay qorshaheeda ku aadan AMISOM maxaa ku jawaabi lahayd
qorshaheeda ku aadan amisom waxa kaliya oo dawladdu inoo sheegtay shirkii beriga dhow ay qabsadeen ayaga iyo dawlad goboleedyadu oo yiraahdeen ciidamadan madaynayna madanla ay dhiseen madan markaa ay ku soo ururinayaan ciidamada hadda lagu magacaabo National Somali Army ama SNA iyo kuwa gobolada weli inoomay sheegin qorsho nidaamsan oo timeline le laakiin in ay ka shaqeynayaan baynu horta jeclaan lahayn because waxa inuu habsatay for a long time waqti dheer dal idil oo facle oo magac leh oo dhowr iyo 20 sano burbursan ilaa 1992 markii UNISM soo gashay hadda waa AMISOM UNISM baa ka horeysay oo United Nations iyo xulafadii Mareykanku bimacni in ay inala sii joogaan wixiina aanu isbedelin baa waxaynu uga fadhinaa mid kaliya ee Soomaalidu isku raacsan tahayna waxa weeye sida ugu dhaqsaha badan in looga tashado amniga iyo ilaalinta dalkani inuu ku soo noqdo ummadda gacanteeda dal laguma ilaalin karo I think dawladii hore waa ku hungoobeen dawladii Xasan Sheekh Maxamuud fadhiid bay ka noqotay arinta oo muddo ku fadhiday dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Khayre markiiba dardar waxay geliyeen arinta AMISOM inay meel marinayaan gartay waxa ka hor iman doona resistance iyo caabi baa kaga iman doonaan u malaynaya dawladaha agaarkeena sida Museveni iyo Ethiopia iyo laakiin dalkani waa dalkii waa in loo AMISOM sida qorshaheeda ku jirana bariyo horena anigu aan ka hadlay ilaa 2025 ugu yaraan inay joogaan bay rabaan inaguna ma qaadan karno ilaa 2025 ama 2025 waa dheerta marka dawladdu waxaynu uga fadhinaa way sheegeen inay ciidamo sameynayaan ummadda Soomaaliyeed waa dad aqli badan oo wax garanaya inay idaacadaha iyo madallada caynkan oo kale ay inooga sheegaan qorshuhu cadad ku leeyahay time ku qaadanayo bisha hore waxay qabanayaan 3 bilood ee hore 6 bilood 10,000 soo ururinayaan qalabeynteeda waxa soo dhan iyo inay noo sheegaan gartay Faisal ugu dambeyntii maadaama dawlad cusub la dhisay lana doortay maxaad kula talin lahayd madaxweynayaasha maamul goboleeyaasha ka jira Soomaaliya maxaad kula talin lahayd ugu dambeyntii iyo ku dhisan inaad ku dartay madaxweynaha laftiisa dawlad goboleedyada waxaan ku talin lahaa I think nidaamka ilaa hadda lagu heshiiyey ee nidaamka federaalku gaar ahaan Cabdiweli Gaas oo kale inaanu la matilin federaalka Ethiopia labadaba aanu waan u dhaganuglahay waan u dhuundaloola federaalka Ethiopia iyo federaalka Soomaaliya waa laba kala duwan Ethiopia qoomiyado even qoomiyad ma ahay race waxa la yiraahdo jins ayay kala duwan yihiin isir ahaan bay ku kala duwan yihiin dadka qaar kood inagu hadii sociology-ga lana noqdo even qabiil ma nihin family ballaaday that's why Soomaalida cid kasto isku xigta ay wax isku yihiin marka federaalka nidaamyada aynu u qaadanay iyo ka Ethiopia u qaadatay historically waa taariikhiga kala duwan Ethiopia debate-ka federaalku wuxuu bilaabmay 1963 qoomiyadaha la cadaadiyo ayaa hubka qaaday oo yiri waanu ka baxaynaa haddii aan dawladda la nidaamin federaalku saas ku yimid dagaalo dheer oo socday ama Eritrea ha noqoto ama TPLF ha noqoto ama Oromo ha noqoto Soomaalidu kale iyaga waa lagu qasbay because inay baxaan bay jeclaan lahaayeen marka horta nidaamka federaalka Ethiopia waa keenu waa rabshad dhacday oo lagu kala biiqay oo la kala cararay civil war oo marka dadkii ay tageen goboladoodii ay ka yagleeleen dawlad unugeed hoose markii dambena la yiri war waxba fiicnaan lahayd development systemka iyo awoodda inaynu hoos ka soo dhisno la qaybiyo hadhowtana dadka ay u kala tagto hadhow waxa isla tagaysaa tan Ethiopia teenu in la empowerment la siiyo ama awoodda loo geeyo dadku meeshay ku nool yihiin waana sax weyn isku raacanahay ama development-gii xamar iyo afgooye berigii hore ku sugnaa in hadda la ballaariyo oo dalku uu yeesho magaalooyin badan oo isku faca oo isla eg laakiin waa khalad baan anu qabaa runtii waana gaf bay aniga dhinacayga iga tahay in federaalka Ethiopia iyo isla waa adigoo imika yiraahdo qabiilka nin baana beri hore qoray qabiilka Soomaalidu ama reerka ay isku dishaa wuxuu la mid yahay midabta koorkii South Africa iyo madowga iyo cadaanka marka sociology-ga ama mawduucu marka aad daytaha ama information-ka ka hadlayso waa inaad gelisaa waxa la yiraahdo context ama meel ku haboonta marka federaalkan waa kala duwan yahay
madaxduna waa inay ka digtoonaadaan. anigu fariimahan dire waxaa ka mid ahaa in dib loo naqtiimo siday u wada shaqaynayaan madaxweynaha iyo madaxweynaha federaalka iyo madaxweynayaasha kale. marba waxaad moodaa dadyoga federaalka diidan inay iska cambaareeyaan dowlad goboleedyada madaxdooda. taasna waa khalad. dowlad goboleedyada dadka madaxda u ah baarlamaan bay iyana samaysteen sida kan federaalka istaageeraan. waa in wixii la isku keenaa oo la isku tallaalaa mooye in la yidhaahdo haddii even hadduu madaxweyne federaal ka tirsani uu xun yahay taasi kama dhigna in nidaamka federaalka aynu tuurayno. marka horta labadaas saasay kala ahaayeen. dee farmaajona talooyinkiisu waa badnaayeen. anigu shakhsiyan talo 3 beejaan u diray. waxyaabahan kasii xasuusta oon jeclaan lahaa markii uu sameeyo haddadana waqtigeedii taagan yahay waxa weeye dalal badan buu dibadaha tegay. waxaa looga baahan yahay dee inuu Puntland tago, uu Kismaayo tago, uu Baydhabo waabu tegay, uu dadka isa soo baro. dadkanaad madax u tahay, you're the president of this Somalis, uma tihid madaxweyne dadyowga kale. marka talooyinka taasaa ka mida in la wada sheekaysto dowladda goboleedyada madaxdooda, wax lagu heshiiyo. ma madaxweyne lagu heshiinayaa, ma governor, wax weyn maaha. waa semantic waxa la yidhaha. waxna waa iska erey bixin. erey bixintu wax weyn maaha, laakiin awooddu sida iyo meelahay kala galayso iyo awood cidda kala leh. arrimaha dibadda dabayaaca runtii ummadda Soomaaliyeed way ka siman tahay in aynu dad nidaamsan noqono oo meel kaliya taladu u urursan tahay. even haddii hadhow dadku is aaminaan, madaxweynaha gobolku, madaxweynaha federaalku wuxuu awood u leeyahay shirarka qaarkood inuu bal wasiirada iska dhaafo uu dowlad goboleedyada dadka madaxda ka ah uu diro, because ka aqlabiyad badan yihiin. dee way ka aqlabiyad badan gartay. aad iyo aad ay u mahadsan tahay Faysal Roble, dadaalkaaga iyo weliba aqoontaada iyo fikirkaaga aad geliso dadka Soomaaliyeed oo mar walba u heelan tahayna Allah ka abalsiiyo. runtii aad baa u mahadsan tahay. idinkana hawsha weyn ee samaysaan sidii noo kale iyadoon idin dirsan runtii waa arrin aad loogu qushuuco ummadda Soomaaliyeedna mahad weyn idinku qabto. gartay. daawadayaal, barnaamijkii wacyi oo maanta oo inoogu marti ahaa Faysal Roble oo nala wadaagay talooyin, tusaalayaal iyo tilmaamo aad iyo aad taageeris u leh. aad iyo aad ay u mahadsantihiin inaad daawateen. inta mar kale barnaamijkan oo kala hawada aynu ku kulmaynana waa aniga oo Maxamuud Dulyadeen iyo saaxiibkay Siyaad Saciid Saalax oo barnaamijka soo saaray oo idinkaga tagay intaas iyo fi amaanillah. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.